dhaqaalaha waa mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee nolosha bini'aadamka, maadaama uu si toos ah u saameeyo xasiloonida iyo tayada nolosha shakhsi walba. Qof kasta wuxuu rabaa inuu gaaro heer uu dhaqaale ahaan isku filnaado, balse inta badan waxaa ka hor istaaga faham la'aan, qorshe la'aan, iyo caadooyin khaldan oo uu si joogto ah u sameeyo. Si kastaba ha ahaatee, runta waxay tahay in horumarka dhaqaalaha aan lagu gaarin si fudud. Si aad u gaarto horumar dhaqaale, waxaad u baahan tahay fikrado iyo istiraatiijiyado kugu hogaamin kara guul dhaqaale. Sababtoo ah qof aan lahayn istiraatiijiyad ama xeelad dhaqaale waa sida qof ku socda waddo uusan garanayn meeshay ku dhammaan doonto. Haddaba muuqaalkeena maanta waxaan ku sharxi doonaa hababka ugu waxtarka badan ee aad ku gaari karto xorriyad dhaqaale iyo istiraatiijiyado casri ah oo kaa caawin kara inaad kordhiso dakhligaaga si aad u gaarto nolol dhaqaale oo wanaagsan. Dhaqaale xumada ama culayska dhaqaale badanaa waxaa keena qofka inuusan lahayn istiraatiijiyad ama xeelad dhaqaalihiisa uu ku maamulo. Istiraatiijiyadda dhaqaale waa hab ama qorshe kaa caawin kara inaad ogaato dakhligaaga, xakamayso kharashaadka aad bixinayso, oo aad gaarto yoolka dhaqaale aad hiigsanayso. Haddaba sidee loo samaystaa istiraatiijiyad dhaqaale oo dhammaystiran? Si aad u samaysato istiraatiijiyad dhaqaale oo dhammaystiran, waxaad u baahan tahay inaad raacdo tallaabooyinkan soo socda. Tallaabada koowaad, ogaanshaha dakhligaaga, micnaha halka lacagtaada ay ka imaado. Ogaanshaha ilahaaga dhaqaale waa tallaabada ugu horeysa ee istiraatiijiyadaha dhaqaale loo maro. Waxaad u baahan tahay inaad qorato dhammaan ilaha dakhliga joogtada kaa soo gala, sida mushaharkaaga, dakhliga ganacsigaaga, ama dakhliga kale ee dheeraadka ah. Waxaan ku raacin doonaa talo yar. U samayso liis joogto ah oo bil kastaad dabaqayso si aad ula socoto kororka ama hoos u dhaca dakhligaaga. Tallaabada labaad, fahamka qarashkaad bixinayso. Markaad ogaato ilaha dakhliga kaa soo gala, tallaabada xigta waa inaad fahanto halkay lacagtaada ku baxdo. Qor dhammaan qarashada bil kasta. Kala saar qarashada muhiimka ah sida raashinka, caafimaadka, kirada, waxbarashada, biilasha korontada iyo biyaha, iyo qarashaadkan muhiimka ahayn sida cashooyinka maqaayadaha, madadaalada, gadashada waxyaabaha aan ku qorshaysnayn. Fahamka qarashkaad bixinayso waa arrin kaloo muhiim ah. Isticmaal apps ama buug si aad ula socoto qarashada aad bixinayso si fudud oo joogto ah. Tallaabada saddexaad, samaynta miisaaniyad, micnaha inaad samaysato miisaaniyad sax ah. Miisaaniyadda waa qorshe cad oo tilmaamaya sida lacagtaada aad u isticmaali doonto bil kasta. Go'aami boqolkiiba inaad rabto dakhligaaga inaad ka kaydsato, inaad kharash garayso, inaad maalgeliso, inaad ganacsiyaad ku samaysato. Haddii aan ku siiyo tusaale fudud, micnaha boqolkiiba 50 inaad kharash garayso oo aad ku bixiso waxyaabaha muhiimka ah. Boqolkiiba 30 inaad keyd aad u dhigato waxyaabaha degdeg ku imaan kara. Boqolkiiba 20 inaad ugu talagasho maalgelin ama ganacsi. Isku day inaad bil walba aad raacdo qorshaha degsatay, haddii kale qorshahaaga ma shaqayn doono. Tallaabada afraad, xakamaynta qarashyadaada. Tallaabadan waxay diiradda saaraysaa sidii qofka ugula socon lahaa una maamuli lahaa kharashkiisa si uu uga fogaado in lacagta si lama filaan ah gacantiisa ugu baxdo. Waxaa muhiim ah in la fahmo in xakamaynta qarashka aysan ka dhignayn in qofka noloshiisa uu cadaabo, balse ay tahay in si taxadir leh uu qorsheeyo qarashka uu bixinayo, si lacagtiisa uu isticmaalo si macquul ah oo faa'iido leh. Arrintan waxay qofka ka caawin doontaa inuu isku dheelitiro dakhliga soo gala iyo qarashka uu bixiyo, inuu ka fogaado deymaha iyo qarashaadka aan loo baahnayn, inuu dakhligiisa qayb ka mid ah u keydsado si uu u isticmaalo waxyaabo muhiim ah oo mustaqbalka faa'iido u leh. Tallaabada shanaad, kaydinta iyo maalgashiga. Kaydinta iyo maalgashiga waa laba tiir oo muhiim ah oo ka mid ah istiraatiijiyada dhaqaale ee qofka. Kaydinta lacagta waxay ka caawisaa inaad ka hortagto xaaladaha degdegga ah ee noloshaada ku imaan kara, halka maalgelinta ay fursad kuu siiso in lacagtaada ay sii kororto ama ay kuu sii ziyaado. Marka hore ku bilow kaydinta lacagta. Waa inaad kaydisaa lacag ku filan 3 bilood ilaa 6 bilood kharashaadka muhiimka ah. Tani waxay ka dhigan tahay in haddii ay dhacdo xaalad lama filaan ah sida shaqo la'aan, caafimaad darro, ama xaalad degdeg ah, in lacagtaad kaysatay aad ku baxsan doonto. Marka xigta, maalgelinta. Maalgelinta waxay kuu oggolaanaysaa in lacagtaada ay kuu shaqayso adigoo gurigaaga hurda. Isku day inaad barato sida loo maalgashado suuqyada saamiyada, guryaha, ama ganacsiyada yaryar si aad faa'iido ugu hesho mustaqbalka. Maalgelinta waa hab muhiim ah oo lagu kobcin karo hantidaada. Digniin: had iyo jeer kala tasho khabiir maalgashi ka hor inta aadan maalgelin weyn aadan samayn. Tallaabada lixaad, yeelo hadaf dhaqaale. Micnaha hoosta ka xariiqo halkaad rabto inaad gaarto dhaqaale ahaan. Waa inaad si fikir iyo ficil aad u qeexdo yoolkaaga dhaqaale, sida inta lacag ee aad rabto inaad kaydsato, nooca noloshaad rabto inaad ku noolaato,
ama heerka aad rabto inaad ka gaarto xagga maalgelinta iyo dakhliga. Marka hadafku noqdo mid muuqda oo la fahmi karo, waxaa suurtagal ah inaad diiradda aad saarto sidii aad u qaadan lahayd go'aano sax ah, isla markaana aad uga fogaato wax kasta oo kaa leexin kara jidka aad rabto inaad raacdo. Hadafka cad wuxuu kuu noqdaa hagaaga maalinlaha ah, wuxuuna kugu dhiirigeliyaa inaad dadaal joogto aad samayso ilaa aad ka gaarto meeshaad naftaada u sawiratay. Hadafkaaga wuxuu ku tilmaamaa halkaad rabto inaad noloshaada dhaqaale aad ka gaarto. Hadafyadaada waxaad u qaybisaa 3 qaybood: hadafka muddada gaaban 1 bil ilaa 6 bilood, hadafka muddada dhexdhexaadka ah 6 bilood ilaa 3 sano, hadafka muddada dheer 5 sano ama wax ka badan. Qoro hadafyadaada dhaqaale, kadibna waxaad dhigtaa meel aad ka arki karto si joogto ah. Talaabada 7aad waa talaabada ugu dambeysa: dib u eegis joogto ah. Talaabadan waa mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee guusha dhaqaale, sababtoo ah istiraatiijiyad kasta ama xeelad kasta ma ahan wax hal maalin la sameeyo kadibna la iska iloobo, balse waa nidaam u baahan in si joogto ah loo fuliyo loona hagaajiyo. Nolosha dhaqaale mar walba way isbeddeshaa, dakhliga wuu ziyaadaa wuuna yaraadaa, sidoo kale kharashyadaada way isbedbedelaan. Sidaas darteed waxaa muhiim ah inaad si joogto ah dib ugu noqoto miisaaniyadaada si aad u aragto meesha ay wax iska beddeleen. Markaad dib u eegto istiraatiijiyadaada, waxaad si fiican u fahmi doontaa haddii ay ku socoto jidka saxda ahaa ama haddii si kama ugu soo dhacday waddo qaldan. La socoshada isbeddelka dhaqaale wuxuu ka caawiyaa inaad si xigmad leh u maarayso una maamusho lacag kastoo ku soo gasha, halka hagaajinta qorshahaaga uu kuu suurtageliyo inaad la jaanqaado xaalad kasta oo cusub oo kugu soo siyaada. Intaa waxaa dheer, qiimaynta joogtada ah ee hadafyadaada dhaqaale waxay ku iftiimiyaan heerkaad marayso dhaqaale ahaan iyo inta kuu dhiman ee aad rabto inaad gaarto. Markaad si joogto ah u eegto horumarkaaga dhaqaale, waxaad awood u yeelanaysaa inaad saxdo khaladaadkaaga, xoojiso meelaha aad ka liidato, isla markaana si kalsooni leh ugu socoto gaarista himilooyinkaaga dhaqaale. Istiraatiijiyada dhaqaale waa nidaam u baahan in si joogto ah loo fuliyo. Sidaas darteed, markasta dib u eeg qorshahaaga iyo miisaaniyadaada dhaqaale. La soco haddii dakhligaaga uu isbeddelo, hagaaji qorshahaaga dhaqaale si aad ula jaanqaado xaaladaada dhaqaale. Talada ugu dambeysa, waxaa wanaagsan in mar kasta aad qiimeyso hadafkaaga dhaqaale si aad u aragto horumarkaaga dhaqaale. Marka aad si sax ah u raacdo tallaabooyinkan, waxaad fahmi doontaa ilaha dhaqaalaha kaa soo gala iyo kharashyada aad bixiso. Waxaad heli doontaa awood aad ku xakamayso lacagtaada. Waxaad noqonaysaa qof leh hadaf waadix ah oo uu rabo inuu gaaro. Waxaad noqon doontaa qof dhaqaale ahaan xor ah. Insha Allahu tacaala waxaan rajeynayaa inaad mawduucan aad ka faa'iidaysateen. Intii mawduuc kale, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.